Dalsan TV isha wararka sugan. galab wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka Dalsan xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho ku soo dhawaada wararka galabnimo qodobada waxa ugu waaweyn xilligan Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo ay xireen ciidamada Itoobiya ayaa maanta laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyadoo rabshadaha ay weli ka socdaan Baydhabo madaxweynaha dalka Eritrea iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho kadib casuumaad uu ka helay madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xildhibaanadii mooshinka ka gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku celiyay in aysan banaanayn xildhibaanadii saxiixay mooshinka in ay ka laabtaan tan iyo inta la horgeynayo golaha shacabka Soomaaliya wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa dhagax dhigtay dayactir lagu sameynayo garoonka kubadda kolayga ee Wish dhinaca dibadda wararka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah qaramada midoobay ayaa howlo gargaar ah waxa ay ka bilowday xuduudda ay wadaagaan dalalka Syria iyo Ciraaq sidoo kale wararka ciyaaraha ayaa daawan doonta markale kulanti wanaagsan daawadayaal u diyaar garooba wararka dalsan oo faahfaahsan Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur ay maanta xireen ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ee ku sugan Baydhabo ayaa diyaaradii sidee waxa ay ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho dhinaca kalena faahfaahin dheeraad ah waxa ay ka soo baxayaan rasaas qasaare geysatay oo wali ka socota magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay faahfaahinta warkaasi waxa soo koobaya wariyaheena Maxamed Ciise Maxamuud wararka aan ka helayna magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa sheegaya in maanta ciidanka dawladda Itoobiya ku sugan magaalada Baydhabo ay xireen Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo kamid ahaa musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada ee maamulka Koonfur Galbeed ila ku dhowdhow Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur ayaa Dalsan TV u xaqiijiyay in xarigiisa uu ahaa mid qaab shirqool ah uu ka dambeeyay inta badan musharaxiinta madaxtinimada Koonfur Galbeed ayaa lagu ballamiyay xarunta madaxtooyada waxaana sida wararka aan ku helayna u yeeray Cabduqaadir Shariif Sheekuna Maya oo ah kusimaha madaxtinimada ee maamulka Koonfur Galbeed isla markaana ah gudoomiyaha baarlamaanka wararku waxa ay sheegayaan in markii la xiray Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur kadib laga soo dhoofiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ila xog ogaala ayaa inoo xaqiijiyay in Sheekh Mukhtaar laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaa loo diidayaa dadka inay arkaan lama oga sababta ka dambaysa xarigiisa waxaana wararka qaar ee soo baxaya ay sheegayaan in mas'uuliyiin dawladda ka tirsan xarigiisa ay ka dambeeyeen amarka lagu xidhay mas'uuliyiin iyo shacab la hadlay warbaahinta Dalsan ayaa waxay xaqiijiyeen arrintan iyadoo ay xiisad ka sii dhalin karto deegaanada Koonfur Galbeed maay baleeray Maxamed Xasan Maxamed oo ku roog magaalada Baydhabo geegmayba si eedan ku horjeedne gacanta guraan oo dawladda federaalka inay ku hayto may baan tafariyeen ka diraane dhamaan mas'uuliyiinta iyo maamulka Koonfur Galbeed may leena shalay hadii gorinini handaday geeg qormayni handadow may ba fadaan sidii Soomaaliland ay la taray oo kale intii goono Soomaaliya wala mid dhan ku goono fadaan insha Allah assalaamu alaykum Mukhtaar Yurushana ka daran hadii aan tan oo Mukhtaar oo ka hadalno Mukhtaar oo qof muwaadin oo qof ku reebo corona male hadii qori reebo lahayd uu naftirkaan may ba diyaarinayna intii qorigun qaadna oo usun dhimana bismillaahir rahmaanir rahiim magaay oo leero Abdi Fataax Xuseen Cali oo rooga magaalada Baydhabo Janaay yaa waliba ku hadalaya walaan oo neeytay leeyahay musuq maasuqnaanta inta ku socota oo farmaajo oo aan dirsadaayo Sheekh Mukhtaar oo hiiray sida la sheegay inuu Mukhtaar oo la jarna yaa Mukhtaar oo kan hiiray tamay faantan dhii yaa Sheekh Mukhtaar oo Abu Mansuur farmaajo in dhaafo meel isku agnagada farmaajo ma kasaana dad yeen kasaan usin kasaana ilaahay noo qobad dadku soo tirin intuu soo reewo Sheekh Mukhtaar oo aan dhii fadaan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مغاي ولي بلاري فؤاد أحمد حسن ولي بنتك شيء فضاي فرينغ فرماجو انت فرقلنت كونفور قلبت كودا وسك دافواي يا تاسي انو شعب مظاهرات قادا ان كيك وابو ارغاي مظاهرات انت كجار مختار ونو لا ديواي سلين ودان مظاهراتكم ان شاء الله 19 bishan ayaa la filayay in doorasho ay ka dhacdo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaana soo baxaya tuhunno iyo shakiyo kala duwan oo la xiriira in doorashadaas ay baaqan karto mar kale Maxamed Ciise Maxamuud Dalsan TV Muqdisho waxaa maanta magaalada caasimadda ay Muqdisho soo gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dalka Eritrea Siyaas Afwerki garoonka diyaaradaha ee Muqdisho waxaa ku soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya
madaxweynaha dalka Eritrea ayaa safarkiisa waxa uu ahaa casuumaad oo ka helay madaxweynaha Soomaaliya waxa uu booqasho ku joogi doonaa muddo 2 maalin ah dalka. safarkan madaxweynaha Eritrea oo ku yimid Soomaaliya ayaa ahaa mid taariikhi ah ama taariikhda markii ugu horeysay madaxweyne ka socda Eritrea oo ku yimaado Soomaaliya. xildhibaanadii mooshinka ka gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay mar kale ku celiyeen in xildhibaanadii horey u saxiixay mooshinkii ka dhanka ahaa ee madaxweynaha Soomaaliya aysan ka noqon karin mooshinkaasi ilaa inta la horgeynayo golaha shacabka. xildhibaan Maxamed Xasan Idris oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waraysi uu siiyay telefishinka Dalsan ayaa arrimahaasi uu faahfaahin ka bixiyay. mooshinka walaal tiradii asdhintada dadkan way ku badbadatay ummadda Soomaaliyeed tiradii asdhintay iyo tiradii soo buuxsantay iyo waa dhaaftay iyo waa laga baxay iyo waa la soo galay mooshinka horta salaad buraysa ma aha oo la soo weysiistay weysidii ka jabtay ma mooshinka procedure soo maraa procedure kuuna ku dhamaada mooshinka xildhibaano ayaa soo qoray xildhibaanadaasna waxay ku dhamaataa doodooda cod ay ku dhamaataa codkana waxaa lagu qaadaa golaha shacabka hoolkooda lagu qaadaa mooshinka sidiisaba inta aan la qaban oo gudoomiyaha aanu qaban oon arkiifiga la geynay istaamka lagu dhufan oon la faafin ka hor qofka magaciisa intuu qoray haddana go'aansaday inuu ka baxo waa inta aanu qofka totally aan gudoonka loo soo gudbin ama haddii gudoonka loo dhiibay intaan gudoonka aanu ansixin sideedaba xeer hoosaadka ay ku qeexan tahay si cadayn u qeexan tahay horaya waxa u jiri jirtay dawladihii laga soo bilaabay Cabdiqaasim ilaa Cabdullaahi Yuusuf in noocyadaas oo kala dadkay u dhaqmi jireen kadib xeer hoosaadka ayaa la bedelay waxaa mooshin qofka soo gala inaanu banaanka uga bixi karin kadib marka istaamka lagu dhifto inaanu ka bixi karin masiisa kaliya uga bixi karo marka hoolka markuu tago wuxuu leeyahay inaan ku dhameystiraan rabo wuxuu leeyahay codkiisa uga bixi karaa doodiisu bedeli karaa oo sidii markii hore u taageersanaa uu bedeli karaa dhinac kale ka taageeri karaa xokayaha baarlamaanka ayaa waraaq soo qoray hadalka ku jiray xokayaha baarlamaanka waa shaqaalana ma ahan nin burin kara go'aan xildhibaan go'aanka xildhibaanku wuxuu ku dhamaanayaa cod shaqaalaha waa shaqaale baarlamaanka shaqaalaysiiyey xildhibaanka iyo shaqaalaha xildhibaanka sareey waa sharciga markaan ka hadlayno marka sidaas ayuuna macno ku yeelan karin xokay inuu waraaq soo qoray in waraaqda sax ma ahayd maqaldanayd muhiimadda nooma mooshinka waa la qabtay waa ansax gudoomiyihina waa cadeey cid ka bixi kartana ma jirto cidda ka bixi karta way jirtaayo baarlamaanka uga baxaysaa laakiin banaankan weyse ma ahan mooshinka. wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay dhagax dhigtay garoonka kubadda kolayga ee Wish. faafahinta warkaasi Suleymaan Xaaji Axmed Raage ayaa soo jeedinay. kadib heshiis arbacadii ay kala sixdeen wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo cutubka taakuleenta ciidamada Talyaaniga ee ku sugan Muqdisho ayaa maanta waxaa la guda galay fulinta mashruucaasi. wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa maanta dhagax dhigay garoonka Wish oo lagu sameynayo dib u habeyn guud xiriiryaha mashruuca lagu dhisayo garoonkaasi xildhibaan kabtan Mooge iyo xubno ka tirsan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa goobjoog ka ahaa dhagaxdhigaasi. wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Axmed Cumar Islow ayaa ka hadlay waxa uu ka dhigan yahay dhismaha garoonkaasi isagoo bogaadiyay mashruuca Talyaaniga ay ku baritaarayaan ciyaaraha dalka. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan goobjoog u nahay mashruucan runtii dayactirka lagu sameynayo garoonka Wish Stadium oo runtii muddo dheer soo socday oo intii ka wada shaqeysay barnaamijkan annagana wasaaradii naga horeysay mas'uuliyiintii naga horeysay soo bilaabeen ilaa maanta ay socotay maantana la soo gaaray xilligii gabagabada ahayd ee barnaamijka la bilaabayay. barnaamijkan wuxuu bilaabanayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 13 bisha 2018 waxaa la rajeynayaa inuu dhamaado insha Allah 2019 bisha labaad bisha February horaanteedii waxaan rajeynaynaa insha Allah inuu noqdo mashruuc aad iyo aad u fiican isla markaasna ay ka faa'iideystaan dhammaan bahda isboortiga gaar ahaan xiriirada kala duwan ee halkan ku ciyaara. waxay arintan horseed u tahay waxqabadka runtii dawladda ay qabatay iyo wasaaradda maadaama naloo xilsaaray inaan runtii ka shaqeyno horumarinta garoomada maadaama isboortigu u baahan yahay meelo lagu ciyaaro. meeshaan oo ah meel aad qadiimi u ah taariikh ah waxaan dawladda Talyaaniga uga mahadcelinaynaa waxyaabaha ay noo qabatay
oo ugu horeeyo maanta inay noo dayactirayso garoonkan ex Lugano oo hadda loo yaqaan Wish Stadium. cutubka ka tirsan ciidamada Talyaaniga ee ku sugan Muqdisho ayaa hore u soo bandhigay taageero qalab isboorti oo ay gaarsiiyeen xiriirka kubadda kolayga. waxaa sidoo kale ay qayb ka qaateen dhismaha garoonka ciyaaraha ee degmada Dharkeenley. Salaaban Xaaji Xamdraagi, Dalsan TV, Muqdisho. weli waxaad daawanaysaan warka galabnimo ee telefishinka Dalsan. markaan waxaan eegaynaa xubintii ciyaaraha alaaba waxaa soo jeediya wariyaheena Maxamed Cusmaan Cali Alfa. waad maasantahay daawadayaal xubintan ciyaaraha waxaan ku soo qaadan doonaa tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League. kulamo ka tirsan tartanka UEFA Champions League ayaa xalal la ciyaaray. sidoo kale 16 kooxood ee sida rasmi ah ugu soo baxay koobka xiisaha badan ee UEFA Champions League ayaan eegi doonaa aanu ka hormarno kulamadii xiisaha badnaa ee xalal laga ciyaaray koobka UEFA Champions League. kadibna waxaan eegi doonaa sida ay 16 kooxood ee UEFA Champions League u tartamayay ay ugu soo baxeen iyo sidoo kale waqtiga la sameeyo isku aadka koobka UEFA Champions League. aynu ku bilaawno groupka E. groupka E waxaa ku wada ciyaaray kooxaha kubadda cagta ee Ajax Amsterdam iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. ciyaar ka dhacday guriga kooxda kubadda cagta ee Ajax Amsterdam. kulankan ayaa ahaa mid aad u xamaasad badan. labada naadi ayaana ku kala baxay 3 gool iyo 3 gool. tan kale ee la yaab kale ee kulankan ayaa ah in labada dhinac ee Ajax iyo Bayern Munich ay qaateen gaararka gaduudan ama roosaha. kulanka ayaa ku bilowday qaab dardar ah. Bayern Munich ayaa la timid goolka koowaad ee ciyaarta. Roberto Lewandowski ayaana u dhaliyay daqiiqadii 13aad ee ciyaarta. sidaas ayay Bayern Munich qaybtii hore ee ciyaarta ay ku marsiisay. laakiin markii la soo laabtay Ajax ayaa la soo laabatay ciyaar aad u qurux badan. daqiiqadii 61aad Ciiraan Tedig ayaa kulanka u barbareeyay oo ciyaarta ka dhigay gool. iyadoo sidaas ay tahay Ciiraanka Weber ayaa qaatay kaarka roosaha oo ka tirsan kooxda Ajax Amsterdam. laakiin daqiiqado yar kadib Ciiraan Muller ayaa loo taagay kaarka roosaha oo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. daqiiqadii 82aad kooxda kubadda cagta ee Ajax Amsterdam ayaa la timid goolka labaad waxaana dhaliyay isla Ciiraankii goolka koowaad dhaliyay ee Tedig wuxuuna ahaa gool kulaad. laakiin Roberto Lewandowski ayaa ugu jawaabay mar kale gool kulaad. ciyaartana ka dhigay 2-2. waxaa ciyaarta ka dhigay 3 gool iyo 2 Ciiraan Coman daqiiqadii 90aad. laakiin ciiraanka waa lagu magacaabo Tagliafico ayaa ciyaarta ka dhigay 3-3 daqiiqadii 90aad oo ay raacday daqiiqado yar. kulankan ayaana ahaa midkii ugu waalida badnaa ee xalal la ciyaaray weliba groupka E ciyaarihii ka dhacay. kulankii kale ee xiisaha badnaa ee groupkaasi laga ciyaaray waxa uu dhexmaray Benfica iyo Atalanta. 1 gool iyo waxbana Benfica ayaa ku adkaatay. groupka F haddii aan eegno waxaa ciyaaray kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo sidoo kale Hoffenheim. ciyaar ka dhacday garoonka Etihad Stadium oo City ay ku ciyaarto. ciiraanka heerka caalami ee lagu magacaabo Kamarej ayaa kooxda kubadda cagta ee Hoffenheim hoggaanka u dhiibay isagoo u dhaliyay gool aad u qurux badnaa oo gool kulaad ahaa. waxaana ciyaarta inta la kala marin oo dhamaadka Hillary Stein uu u barbareeyay goolka kooxda kubadda cagta ee Manchester City. qaybtii hore ayaa lagu kala maray gool iyo gool balse markii la isku soo laabtay mar kale Hillary Stein oo xalay wacdaro soo bandhigay ayaa gaaray shabaqa ka naadiga Hoffenheim waxayna ugu dambeyn ciyaartii ku soo dhamaatay 2 gool iyo gool oo City ay ku badisay. halka Shakhtar Donetsk waa naadiga Lyon ay wada ciyaareen gool iyo gool ayayna ciyaartaasi ay ku soo dhamaatay ciyaar ka dhacday guriga Shakhtar Donetsk. groupka kale ee xiga ee xiisaha badan waa groupka ay ku wada jiraan kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid, CSKA Moscow iyo sidoo kale naadiga Victoria Plzen. waana groupka G. kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa laga yaabsaday kadib markii naadiga CSKA Moscow 3-1 ay ku dubteen Real Madrid oo waliba ku ciyaaray garoonka Bernabeu Stadium. Real Madrid ayaa ceeb soo gaartay walow kaalinta koowaad ay kaga soo baxeen groupkooda. Victoria Plzen iyo Roma ayaa wada ciyaaray. Roma ayaa iyadana guul daro aad u xanuun badan kala kulantay kooxda Victoria Plzen. ciyaar guriga kooxda Victoria ka dhacday waxaan Roma lagu soo garaacay 2 gool iyo gool. groupka ugu dambeeyay waa groupka H. groupka H waxaa ku wada jira kooxaha Valencia, Manchester United iyo sidoo kale Young Boys iyo Juventus. labada kooxood ee groupka ugu waaweyn ee United iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa guul darooyin la kulmay. kooxda kubadda cagta ee Young Boys ayaa 2 cad ka dhigtay kooxda kubadda cagta ee Juventus oo ay marti qaaday 2 gool iyo gool ayayna ku garaaceen. Valencia iyadana waxay marti qaaday kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxayna ku garaacday 2 gool iyo gool. markaan waxaan eegi doonaa saaxiibayaal 16 kooxood ee u soo baxay wareegga 16 ee koobka xiisaha badan ee UEFA Champions League. waxaa si rasmi ah loo soo dhameystiray wareegga gurubyada tartanka UEFA Champions League xilli ciyaareedka iyadoo kooxaha reer Yurub ay si rasmi ah u ogaadeen inay u gudbay wareegga 16. kooxaha Liverpool, PSG, Tottenham iyo Shakhtar Donetsk ayaa noqday 4 kooxood ee ku biiray kooxihii hore u soo baxay wareegga 16 tartanka Champions League. kooxaha 16 ee haatan u soo baxay wareegga 16 ee UEFA Champions League
kuwaasoo maalnimada isniinta ee 17 bishan December loo sameyn doono isku aadka. haddii aan dul marno waa kooxaha kubadda cagta Athletic Madrid, Borussia Dortmund, Barcelona, Tottenham Hotspur, Paris Germain, Liverpool, Bayern Munich, Ajax, Manchester City, Shakhtar, Real Madrid, Roma, Manchester United, Juventus, FC Porto iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Schalke. dhammaantood waa kooxaha u soo baxay wareegga 16 ee koobka UEFA Champions League. daawadayaal waxaan jeclahay xubinta ciyaaraha halkaas inaan ku hakiyo inta aan kulmi doono mar kale waxay kaga tagayaa ciyaaro horumar leh. halkaas haddii aanu ku dhaafno wararka ciyaaraha iyo waryaheena Maxamed Daqo Cusmaan Cali, markan waxaan eegaynaa wararka ugu waaweyn dhinaca dibadda. qaramada midoobay waxa ay gargaar gaarsiinaysaa xuduudda dalalka Urdun iyo sidoo kale Syria. qaramada midoobay waxa ay sheegtay in howlgal ballaaran ay ka bilaabi doonaan deegaanada ku teedsan xuduudda dalalka Syria iyo Urdun. howlgalkaasi oo socon doona muddo 4 asbuuc ayaa waxa uu qorshuhu yahay in kolonyadu ay gaarsiiyaan dad tiradooda lagu qiyaasay 650,000 oo qofood, kuwaasi oo ku dacdareysan deegaanadaasi. gaadiid lagu qiyaasay 370 gawaarida xamuulka qaada ayaa la filayaa in ay daabulaan 11,200 oo mitir tan oo shixnad gargaar ah si ay taageero nafbadbaadin ugu sameeyaan 100,000 oo qof oo ku dhibaataysan dhulalka ku teedsan xuduudda dalalka Syria iyo Urdun. warkii oo daawada idinkaga imaanaya telefishinka dalsan xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho anaga inta anigoo Firdawsi Saala ayaa warka soo jeedinayay. warkiisa kale intaan dib ugu kulmayna waxaan idinkaga tagaynaa maanta. Dalsan TV isha wararka sugan.